waddanka Sweden ayaa nin konton jir ah waxa ay ku xukuntay 8 sano oo xabsi ah iyo sidoo kale in uu bixiyo adduun lacageed oo gaarayo 8 milyan oo karoonka Swedish-ka ah oo magdhow ahaan uu u siinayo caruur uu kufsaday. ninkan konton jirka ah ayaa lagu helay dambiyo badan oo galmo ah kuwa oo uu kula kacay ilaa iyo 44 caruur ah kuwa oo ku nool gudaha waddanka Sweden, waxaana lagu soo waramayaa in ninkan xukunkan adag lagu fuliyay laguna xukumay. waxayna warbaahintu sheegaysaa in 59 kiis oo kufsi caruur ah lagu helay ninkan iyo sidoo kale 31 kiis oo xadgudubyo galmo ah kuwa oo uu kula dhaqaaqay caruur. waxaana lagu soo waramayaa in ninkan uu hadda ku xukunaa 6 sano oo xabsi ah, hayeeshee markii xadgudubyadan dheeriga ah lagu helay cadeymaheediina la helay loo kordhiyay 2 sano oo xabsi ah, taa oo wadarta guud ee xabsiga lagu xukumay ay ka dhigan tahay 8 sano oo xabsi ah. waxaana sidoo kale ninkan galmada kula dhaqaaqay ilaa iyo 44 caruur ah uu adeegsan jiray aaladaha social mediaha, waxayna hay-adaha ammaanku sheegayaan in ninkan uu isticmaali jiray bara bulsho isaga oo iska dhigayo gabar yar oo aan qaan gaarin, sidaana uu caruurta kula xiriirayay ilaa uu kasoo xerogeliyo. waxaana lagu soo waramayaa in kufsi iyo sidoo kale falal galmo ah uu kula dhaqaaqi jiray caruurtan 44 gaaraysa ee ku nool gudaha waddanka Sweden. baaritaan dheer oo ay hay-adaha amniga, cadaaladda iyo caafimaadkuba sameeyeenna lagu soo ogaaday xadgudubyadan joogtada ah ee uu u geysanaya caruurta ninkan konton jirka ah. ninkan konton jirka ah ayaa sidoo kale waxaa lagu xukumay inuu magdhow ahaan caruurtan 44 ah ee uu kufsiga iyo galmadaba kula dhaqaaqay uu siiyo adduun lacageed oo gaarayo 8 milyan oo karoonka Norwejiga ah, iyadoo ay u dheer tahay 8 sano ee xabsiga lagu xukumay. dhacdooyinka caruurta kala duwan lagula kaco ee kufsiga iyo dhibaataynta dhanka galmada ah ayaa wadamo badan oo reer galbeedka ah kusii kordhaya, waxayna arrintan ka mid tahay dhacdooyinka argagaxa leh ee caruurta aan qaan gaarin iyo kuwa aadka u yar lagula kaco. halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.